السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. dhammaan halkan waxaan ka salaamayaa dadweynaha Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan. Bacda salaam waxaan ka hadlayaa maanta koonfur galbeed maamulka koonfur galbeed oo lagu yahay duulaan dagaalana ay ka dhaceen sababtana inaan garanayo. marka la yaab waxa ah in maamulka ugu wanaagsan oo dhisan marka Puntland laga reebo lagu duulo iyadoo ay jiraan maamulo dhibaatooyin badan ka taagan yihiin oo u baahan isbedel u baahan. marka dad wanaag wada hadday yihiin dadkan dowladda sheeganaya hadday yihiin dad wanaag wada dambi jadiid dee waxay wax ka qaban lahaayeen Kismaayo meesha la yidhaahdo Jubbaland bay wax ka qaban lahaayeen hadda dad wanaag doonayay horumar yihiin meesha la yidhaahdo Jubbaland bay wax ka qaban lahaayeen. marka waxaynu aragnaa inay ka soo horjeedaan wanaagga iyo horumarka dalka Soomaaliyeed. marka maxay ahaydeen waxaynu arkaynay iyadoo weerar lagu qaaday meesha la yidhaahdo koonfur galbeed shir baa lagu qabtay xabar nagoo maqlaya maxaa laga shiraya shirkaas wax dee maalaya macna ama ujeedada laga leeyahay tahay maamulka koonfur galbeed kaliya bes in laga hadlo waayo wax diyaarsan iyo wax dowladnimo yahay dee maynu arkayn. shirku waa inuu ujeedo leeyahay marka la shirayo ujeedada laga leeyahay waxaan u arkaa waan inay tahay maamulka koonfur galbeed in lagu qashqasho marka sidaa ajligeed hadday wax qabanayaan leeyahay waxaan qabanayna wax qaban karaa yihiin ama wax wanaag doonaya yihiin Kismaayo wax ka qaban lahaayeen Jubbaland bay wax ka qaban lahaayeen Jubbaland ninka dhowr iyo 10 sano haystay oo dabarigii uu joogay farmaajo oo la khiyaanayeen kii Xasan Cali Khayriye intooda kaleba hoosta lagala socday. marka meesha danta waa tilqas oo dowladda dhinaca dhaqaaq weyday. marka maxay ahaydeen markii ka soo degay madaxweyne lafta garan airport dhalinyaro sharciga taagan oo sidii ku beriga samayn jireen badbaado qaran wax sheeganay laba dirham la soo siiyay laba boqol la soo siiyay dhalinyaro laba boqol maxay ahaydeen laba dollar la soo siiyay sharciga taagan ciyaal yaryar 10 ciyaal laba dollar la siiyay. waxaas wax weeyaan waa calaamad lagu yaqaanay badbaado qaran oo waddanka haysata. marka wax wada dhan talaabooyinka qaadan waa xumaan talaabo kale wanaagsan may qaadeen la hadeerto waxay meesha soo taagan qayliyeen ama doonada hayeen waa keen waxay yihiin koonfur galbeed ninka ka soo horjeedaan koonfur galbeed u dhashayna waa nin wanaaggiisa horumarkiisa ka soo jeedaan marka ta kale aan ka hadlayna waxa weeyaan reer Sheekh Isxaaq oo sheeg yiri waxaan nahay carab waxaan aaminsanahay inay runta tahay way sababtu tahay horena way sheegan jireen mar lixaas khadka laga saaray laga lumiyay wadada saxda ahayd laga lumshay oo meel kale loo leexiyay isbaahaysi siyaasadeed baa loola leexday. waxaan garan waayay waxay iyagu mataqaanaa iyagu raaceen iyaga laftooda waxaan ka filayaa siyaasiyiinta ay waxaas ku raacay sheekadaas arrin siyaasada bay ahayd siyaasad laakiin qolyaha kale waxay yihiin maqaanin waxay yihiin reer koonfur deegaankoodana uma garanayo ay ka adag yihiin waxay yihiin maqaanin meel galaan meel ka baxantoon iska sheegona maaha
meel lix baa laga soo qabanaya xabil xambil xabil xambil xambil abtirsiyahoodii maxaa usoo gelbay marka hore carab runtii anigu waxaan aaminsanahay rees saxaaq ay carab yihiin iyo daarood taasaan aaminsanahay intaasaan kusoo koobay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu